adduunyadu waxaa la yiri wareegtaa waa silsilad amaba balada adiga maanta kaa maqan ee qofka khayrkaa ku dhacday beri way soo gadoomaysaa adiga kugu imaanaysaa tan adiga ku haysatana qofka kale ee khayrka ah ayay beri ku dhici kartaa magacaygu waa Firdawsi Maxamed Cabdulle channelka aad iga daawanaysaana waa Fartiina fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe tanoo saar barnaamijka maanta aan ka hadlayo wuxuu ku saabsan yahay ka dumar ahaan sidee uga falcelisaa dumarka kale ee magac dumar ahaan aad wadaagtaan dhibaatada soo wajahdo tusaale ahaan haba ahaatee marka gabar walaasha ah guurkeedu uu ka qaldamo dhibaato ay soo gaarto iyada iyo xaajigeeda odageeda isku dhacaan gurigeedu uu burburo ka adiga shakhsi ahaan dumar ahaan sidee kuu saameysaa dad badan dareenka wuxuu ku xiran yahay isku dhawaansho ahaan hadba qofka heerka aad wada taagantihiin ee ka saaxiibtinimo ahaan ama ka walaal ahaan intaas waxaa sii dheer oo magac guud dareen guud kuu leh qofka adiga aad taqaanid haddii aadan aqoonin waxaa laga yaabaa inay si gaara kuu taabato xanuun qof walaasha ah soo gaara xanuunkaas ma ahan wax qofkaas kaliya ku koobnaan karo xanuunkaas beri adigoo kugu imaan karaa midna ogaada asxaabey albaab walba oo xiran oo guri walba waxbaa unka jiro waxay rabaan ha ahaadaan wanaag xumaan wax walbaa ka dhaco albaab walba oo xiran gadaashiisa wixii ka dhaco allahu aclam dadka ku jiro ayay quseeyaan marka laga reebo marka ay bannaanka yimaadaan oo dadka ra'yil caam uu noqdo waxa dadka dhan ay wada saameeyaan hadda aniga videoga caawa sababtaan u duwaa waxay tahay waxyaabo badan oo iga yaabiyo oo social media aan si aade berihii ugu dambeysay ka socday markaan si usii baaro waxaa ila noqotaba gabdhaha inay ayaga cadow kale aysan qabin oo cadow ugu horeeya ayagina isku yihiin oo aanay isku damqan marka laga reebo dareen istustus marka laga reebo ay ayaga un isku maqan yihiin dhibaatada adiga kugu dhacday maanta beri qofkaas hadda kugu kaa kula damqan waaye ee dhibkaaga asaga faa'iidada u arka kuma xisaabtamin dhibtaan inaad adiga u dhalan oo beri adiga iyadana ay aadi karto warka muhiimadiisa aan u galo xire gube rag wuu ku jiraa weligeed wuu ku jira wax cusub ma ahan waxaa daran laakiin guri nin aad u jeedid guriga uu ka soo baxay maanta albaabka kaa soo horjeeda ninka ka soo baxay dhibaatada uu soo sameeyay aad og tahay qoyskiisa dhibaatada uu soo geysto aad og tahay marka albaabkaaga soo gashatid adigana maxaa tahay adiga bir maa tahay bir shub maa tahay shubka xataa wuu dumaamo ogdo bini aadanka dareen iyo qalbiga isdheeryihiin gabar walaashaa nin soo xumeeyey oo aad og tahay dhibkii iyo rafaadka ee kasoo martay dhibkii iyo rafaadka ee kasoo martay markaa adiga soo xariisato aad tidhaahdid duxunaa soo rafaadayso see ku ogaatay inay soo rafaadaysa hadal macaana duubaanta kuula hadlay iyada beri shalab hadal macaana kula hadli jiray maxaa keenaya maanta inaa adiga u damqa weyso qof aad taqaanid qof aad arki jirtay dhibka ugu badan ee waxyaabaha ugu badan oo la yaabkii ama kaabka dad badan ay ka qaadeen waxaa ka mid ah in dumarkiiba obsess ay ku noqdeen inay wax rag le ka hadlaan yiraahdaan maanta ninkay isheleen waxay leedahay anigaa nin rageed helay anigaa masiibo maxaa la dhahaa balaayo dhan maxay ahayd oo iga haadayo nololaama galabo raxmadaaba soo degtabo beri maxay dhehee ilaahay mootiye kaas ilaahay muxuu kuu mootiyey shal raxmad kaa dhehaysa maahano ceeb ma lahan guurka sidiisa waa calaf waa god aa gacanta gelis wax kaala imaan doono ma taqaanin laakiin ogow qofka aad guursanaysid ama qofka aad rabtid inaad xiriirka la samaysid haddii backgroundgiisa oo aswad uu yahay oo aad og tahay dhibaatada oo muuqato oo hadda uu soo geystay adoo u jeedid haddii aad tiraahdid maya aniga dhibaatadaasaytii inay runtahay ma aqaano laakiin waxaan fiirinaa dhaldhalaalka muuqaalka isteelka quruxda isteel waa baaba'aa qofka duruufaa ku imaan karto quruxdaas lagu sheegaya qofku gabow waa ku imaan karo ha fiirinin because da'da mararka qaar da'da waxba ma aha waxaa muhiim ah qofka qalbiga uu leeyahay ma yahay qof naxariis leh ma yahay qof dulqaad leh ma yahay qof nolosha wax ka yaqaan ka waran haddii qofka aad dhaldhalaalka iyo quruxda iyo yaraanta amaanta
aan nolol uga raadisay hadduu qalbil aswad oo yahay ka waran qof aan jixin oo aan nixin hadduu yahay ka waran qof gacan adag hadduu uu yahay ka waran waxaasoo dhan waa waxyaabo dhici kara amaba dhacayoo la arkabo gabar walaashaa meel ay ku ooysay inaa adig ku farxdid waxaa waayo dameer xumo teeda kale adduunka dhan nin la-aan kama dhicin ragga dhan adinkaa waxba ka dhigay gaar ahaan fariinta waxay ku socotaa dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka ku nool qurbaha nimankii adinkaa balaayo ku rida sababtaa balaayo ugu rideen waxay tahay maanta dhan noloshiini hadalkiini oo dhan ninoo kusoo koobmay tii go qurux badan sariirteeda soo gadato waxay leedahay go sariirta xaajiga loogu talagalay tii maanta isoo carfisay waxay leedahay cadarka xaajiga loogu talagalo carfaya kaalaya ila marsada wixii dhan waxaa ka dhigteen maxaa la dhahaa waxaan jirinaa ka dhigteen wax qiimo aysan lahaynaa gaarsiiseen gaarsiiye muxumo waa nin Soomaaliyeed oo walaal Soomaaliyeed dhib ma laha reerkaaga hadduu ku barakeysan yahay ku kala kacsan yahay ku qurxan yahay alxamdulillah alshukru dadka dhan kulama haystaan laga yaabe qarso waxaaga haddaa rabtid laakiin ha soo xareysanin ha soo xarey haba hunguriyeysaninbo gabar walaashaa ninka soo ooysiiyey fariintan si gaar ahaaneed gabdhaha Yurub joogay quseysaa war ninka aa u jeedid ee gabar walaashaa ka ooysiiyey oo maxaa la dhahaa raadkeediba oo sii muuqdo haddiiba u kale ordaysiina isku dilaysiinbo nolol ma haysiin maya nolol ma haysiin taasoo kale dhimashaa ka roon nin wuu buuxaa yoo kugu noqonin dilaa kugu noqonin dilaa ma ahan kaliya qofka inta mindi qaata kawka siiya maaha kan qalbiga kaa dilo kan self esteemkaaga maxaa la dhahaa niyad jabka kugu abuuro kan maanta dhan adiga ku liidaya kan aan ixtiraamku ixtiraamaynin kan aan wanaaga kula rabin kan horumarkaaga aan ku farxeynin oo aan ku garab istaagaynin maalintii dhibaato kugu imaado haddaa nin ka dhigatid ama aanin ahaan u qiimaysatid oo aad tiraahdid anigaa nin rageed Allah kaaga dhigo bari ha soo ooynin teeda kale mid ku qora meel haddaa maanta gabar walaashaa u damqa weyso ooyinteeda oo maxaa la dhahaa ninka walaashaa gabadhaas magac walaaltin magac dumarnimo magac Soomaalinimo kula wadaagto dhiig kula wadaagto haddii maanta u danqa weyso aad dhii weyso okay qofkan walaashay dhibka gaari dartiis waa ka tanaasula ama waa ka digtoonaana haddaa u tanaasul weyso bari ooyintaada waxba nagama gelin anaga xagga haddaa inta soo fadhiisatid saan u yeel qofna kuma dhageysanayso waayo sidaas shalay adiga samaysay tu kaleetooda iyadana samaynayso daf dhinacaaga kale taas adi albaabka soo horjeedaa ka soo baxday laga yaabay gurigaaga inay kasoo dhex baxdo furdug intee dhinacaada kasoo tiraad kula dhinac iga leexo way dhici kartaa way dhacdaa islaamaa ku tartamaya wiil yar waxay u maleeyaanba tartankii inuu yahay in lagu kala guuleysanayo maxaa la dhahaa karaama beel waay waxaa ku guuleysanaysiin malaha guur number waay marihinoo daad ha let it go ha dhacdo way noqon kartaa ages number mana dhib ma lahan wax dhiba maba ka taagnabo dumar badan rag badan waxaa guursan jir 15 jir waxaa guursanaya 8 jir waligeedu ama maxaa la dhahaa waalidkeed ha ka iibiyaan oo ka beeciyaan ama maxaa la dhahaa iyada duruufaha hadartan wadanka ka jiro kaleetood iyada dhibaataha haysata saas ku guursato way dhacdaa hadda dee gabar weyn nin guursato oo iyada ahaan ka yar inkastoo aan arkin habar laclac oo ani maanta oo sii dhici rabto oo wiil yar guursanaysa aan wali arkinbo waxa meelaha la ordaaya 60 jir leh ay tahay maba ka sii yarbo ha ka dhigina guurka qiimo beel ha ku ridina sababtoo adiga guurkaaga waxa u baahan tahay inaad ku aflaxid laakiin ooyinta gabar walaashaa kuma aflaxaysid dhibaatada gabar walaashaa nin maanta u soo geystay bari adigoo ku geysanaa tii iyada uu ku dhigay ka daran oo ku dhigaya tu kaleetoodaana beri gadaashaada taagan teeda kale ceeb ma aha inaad guursatiin laakiin ixtiraamaa loo baahan yahay balse ma ahan in hunfey meel kasoo baxda camal maxaa la dhahaa mukulaal balaq la tusa camal inaa lagu kala yaaco kala dafa waxaas xeer ma ahan wax dhaqan ma ahan wax oo laga yaqiiqsado waa taas xaggan uga haraya tan kaleetood ninoo waxaan ku leeyahay way ku ahaatay ilaa intee adigana maxay ahayd sanka saas u taagi doontaa bari waxaa kuu soo bixi doonto mid cagaha kaa tunto mid adigana kaa oysiiso sida aa gabar walaal aa uga oysiis sida aa gabar hooyo Soomaaliyeed ixtiraamka iyo karaamada uga qaaday mid iyadana kaa qaado aad arki doontaan naagaha hadeertaan gurbaanka kuu tumayana meelna kuma gaarsiinayaan waayo
waxa loo ordaayay wax qiimo leh maaha maba u qalanteedba anyhow si kasta waxaan leeyahay taas intaasaan uga haraaya kor dumar waa kaba isma dhaama waxba isma dhaamo haddaa isku jixin jixaadaan iyo haddaad isku jixin jixinba labo tan guurka ah qof walba calafkiisa uu helayaa calafkaaga hadduu meel fiican ku gaarsiiya alxamdulilah alshukr haddii dhibaato oo maxay ahayd wax aadan filayn lama filaan nolosha uu kugu noqdana alxamdulilah calaa kulli xaal sababtoo ah ka badanaa imaan karabo wax badan oo kheyr ah ima heli doontaa anyhow barnaamijka intaasaan kusoo gabagabeynayaa waa iga dardaaran gabar walbo nolosheeda iyadaa xor oo iyadaa u madax bannaan laakiin mar walba waxaa naga dhexeeya damiir walaaltinimo ah inaan isku damqanana mar walba waa wax fiican waayo waxaan nahay dad isleh oo aan kala maarmin oo isku damqada fadlan barnaamijkeena haddii aad ku cusub tahay subscribe garay noona sii share garay si ay u gaarto gabdho kale oo badan